kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamij aan ku falanqayn doono ninka la yiraahdo Nimcaan Hilaac iyo inanta la yiraahdo Xiis Xarago iyo cadaawada uu qaba ninka Nimcaan Hilaac la yiraahdo hablaha reer Sheekh Saxaaq isaga oo kaga aarsanaya kuwa iyo kuwa kaleeto barnaamijka sheer gare meel fog gaarsii lana wadaaga asxaabtaada horta qadiyadaasi ama barnaamijkaasi intii aan arkayay inanta Xiis Xarago sida ay sheegtay inanka wiis guursadeen reer bay noqdeen arrin bay wadaageen waxay ka sheekaysay waxyaabo fara badan oo xasaasi ah mid iyada leeyahay midna hablaha reer Soomaaliland iyo dadka reer Soomaaliland oo dhan midna Nimcaan Hilaac iga gaarsiiyay mid iyada leeyahayo may ahayn arrinteeda inay social media la wadaagto oo inay intay barta ku soo bandhigto ay halka ka dacwooto way dadka Soomaalida social media in laga maadsado ma horto wax lagu tarimayo mid baa seegtay aabaheed baa jooga Nimcaan Hilaac ehelkiisa waa reer Somaliland isagoo hadduu noqday wiil duday oo banaanka baxay aabihii waa askari reer Somaliland walaalihii iyo ehelkii ilmaadeeradii boorami degayiin dadka samaroon ee bartaa degan waa dad goba oo dhaqan yaqaana oo qiimaha inanta iyo waqaana marwid buu live soo galayo dadkiiba xoog commentigii caydi waxa ugu badnaa xataa reer boorami ahayn caytami maagay gobonimadaasi Soomaalidu inta badan waa waxay wadaagto khaasatan dadka reer Somaliland ama reer boorama noqdaan ama burcayo berberiya hargeysa meesha doonaan noqdaana xagga hablaha laga maro haddaba mid baa sheegtayo hadday caruur hayso guur xalaal ah isku guursadeen ilmihii isagu leeyahay dee waxay ahayd inay ka dacwooto maxkamadaha iyo wadanka Somaliland aabaheed iyo ehelkeed haddii loo tago la yiraahdo war inankii inanta dee reer buu ahaa haduuna dhaqanayna warqadeedii wixii doogii la kala midi jiray loo maro haddii kalena dee inantii ha dhaqdo reerkeegiya baasheedii ha sameeyo horta intaasay ku koobnaydo waxaan aaminsanahay Nimcaan Hilaac iyo ehelkiisa iyo adeeradii iyo ilmaadeeradii iyo walaalihiiba midna inaan xumeeyeen taasaan horta anigu aaminsanahay habluhuna imika dhaqamo aynaan hore u aqoon oo inta badan xamar iyo meelahan ku arki jiray waxaan aragnaa in social media inta la soo fuulo laga ooyo kira qoqaaqan ka arkisay kuwa kale arkisay waa waxyaabaha inta isdhexgalka bulshada aynu ka faa'iidnay okay Xiis Xarago horta taas seegtay dariiq qaldan way martay marka horena mid baa seegtay hablaha reer Somaliland iyo hablaha reer Sheekh Saxaaq waan uga digaya waa nin aad ishaysaan oo tolka ishayaan oo ilmaadeerada ishayaan oo aad arkaysa cadaawada uu ku qabay oo inan horo inaadeer waa inantii labaad inan horo oo inaadeerta ay intuu xumeeyay waxa ku sameeyay horta aqliyadaada ta ku tiri adna ku biir horta waa nacasnimiyo waa hog aad arkaysa inaad ku dhacaso aad ku sii socotay way sadacday ilaahay baa qadaray waxaan uga digayaa hablaha kale qaar badan waxaan arkaa inamadii qalasiyada iyo inamadii dhubhanta iyo kuwa fara badan oo chance ku raadinayeen video ka duubaana inay raadinayso maanta waxa tir video ugu rakaadaynaya okay anu Nimcaan Hilaac wallaana la yaabin waanan ka filayay waanan arkay inuu taa iyo tukala ku sameeyo waayo inankaasi ku nacasnimada waxa u sii dheer inan gubeednimo kale waxa uu wax ku noqday qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo uu qiimo ku yeeshay uu meel ku gaaray uu ku horumaray qarankii uu heelka ku maray isagoon cidi aqoon ayuu hargeysay yimid xidigaha geeska wax ka dhigay qiimo yeeshay magac buu yeeshay meel buu gaaray maalintii uu meel gaarayna weelkii wax lagu siiyo ku xaaray horta waa ka Somaliland soo caayaya hariya habeen halka taagan inay dunto oo dhibaatoodo oo dhibaato ka dhacdo ayuu afraatan saac raadinaya haddaba dhaqamada inan gubeednimada in dhanka dumarka inta la iska maro inan laga duubo
muuqaal oo lagu xumeeyo xataa inantu way kala duwantahay taad qabtid yacni waxa ka suurta gashaa un nimcaan iyo kuwa la midkood nacaybka aadka wuxuu qabaa nimcaan ilaac waxa weeyaan cuqdad buu qabaa isaaq iyo somaliland inuu arko adduunkana wuxuu sugayaa maalin maalmaha ka mid ah inuu isaaq istiro somaliland burburto isaaqoo qaxootii barugu tagaan boorama oo halkaas soo dhaweeyay qolomaantay saacad muuse lagu soo dilahaa ma gabili baa dunta hargeysa dunta farxad u baadha dhigto ilaahay sitiisa kama dhigayo dee wuu arkaa inuuna khayr ku socon sidaa aan boorama iyo u jecelnahay awdal iyo horumarkeeda ayuu ilaahay somaliland oo dhan u horumarin doonaa meel kaste waay haddaba nimcaan hilaac mid baan idin leeyahay dadka reer somaliland ha u caayina gadabuusi samaroon nimcaan hilaac ma matalo waa inan gubeed laakiin dadka samaroon waa dad goba dun iyo xariira xalaala waxa weeyaan inuu gubeedkaasoo kalena iska qabtay laakiin aan sidaa samayn dadyo fara badan waxaa jirta caadifadu intay ka tanbadato caytama reer caytamaya reer caayataasina waa gunnimo isaga ha lagu eekaado inantaasi laga duubay muuqaaladaasi uu soo gelinayo xaaskiisii inantu shalay toole furaashka la seexanay inuu saa ku samaynayo horta ilaahay baa ka abaalin labada caruura midna uu yahay ay dhashay midna uu maraykan ku dhashayna mid ku anfici ilaahay baa og beri toole laga yaabee intaa soo ritirgarowdo kuwa kala gaala kaa raacaan annagu lama doonana caruur gaala raacda ilaahay kama yeelee laakiin nafsigu waa balaayo aslan ma nafsigu waa balaayo waxaa laga yaabaa inuu akhiiran kaa maanta la tuugaabay soomaalidu tiraahda kaa aad tuurtay inaad berri toole baridood wax noqoto markaas waxaa leeyahay war hablaha sidii ay madaxa inoogu saarnaan jireen ha inoogu saarnaadaan qof kasta nimcaan hilaac wada jeedsano reer somaliland war nacaskaasoo kale intaad doontaan beriyo nagu garaacin imisaa inan raacday nin madowga ama afrikaan ama meel kaloo berrit hore soo iido inta muuqaala laga duubay ilmaadeeradeed iyo walaaladeedu dib loogu garaacay war markaad guursanaysaan war markaad meel tegaysaan war tolkiin iyo dadkiina la tashada seven xun baa lagu jiraa adduunkii wuu xumaaday kamarad baa sida la gabadh kasta ay halkaad tegaysiyo halkaad maras iyo meeshaad tegayso ka fiirso caalam baynu ku joognaa la iska aarsado kamarada sidaa loo sito dunidaasi haddaanad gaashaamanona sidaa u taagnaan khatar kastaad gelaysa barnaamijkaa sheer gale meel fog gaadhsii aad iyo aad baan kuu salaamaya